asxaabta soo dhawaada. Haddaad tahay hooyo rabta caanaha inay u bataan, haddaad tahay qof dhabarku xanuunayo, maasha Allah aneemiya ku haysa, alaabtan mirahan waa kugula talinaya. Runtii aad ayaad uga heli kartaa. Dadka sonkorta qaba aaday ugu fiican tahay, sida saxda oo u samaysanaysa ku tusa. Mirahan aad u jeedaan asxaabta waa xulbad ha la yaabin. Dabka ayaa in yar kusoo tagagicina. Waxaan rabaa inay haddii fara taabteen wixii taabtay ay ka dhintaan. Udgoonna way ii noqoneen xulbad waaye. Haddaad tahay dadka xulbada neceb dhabarku xanuunayo, maasha Allah waa ka heli doontaa. Xulbada waxay ka mid tahay waxyaabahaas sokorta dejiya, aad ugu fiican dadka sokorta qaba. Weliba waxtarkiisa soo fiirsada. Waxyaabo kale aan ku daray ayaa jira marka isticmaalaysid haddaad qof sokor qaba tahay. Asxaabta qaaliga runtii bahashan waxay u fiican tahay dadka aneemiyada qaba, aaday ugu fiican tahay. Waxaan ku tusaa sida aad u jeclaysanaysid. Waxaa soo qaaday hal qaado biyaha ku shubaysa. Caawa markaad seexanaysid ayaa dhigay halka qaado wuu badanayaa. Asxaabta qaaliga biyaha markasta aad jikada tagtid waad ka daadinay, waa dhaqay biyo kale ku shubaysa. Waxaan ku tusaa dhabarka aaday ugu fiican tahay. Haddaad tahay qof dhabar xanuun qaba, waatana halka qaado markasta aad jikada gashid biyaha ka daadi dhaq, maasha Allah kaal iska arag macaanay noqonay. xulbad waaye runtii macaanay noqonay. Waxaa sameynaysaa asxaabta qaaliga malaba soo qaadan aneemiya hadday ku hayso maanta kuugu dambeysa. Dhabar xanuun dadka dhabarku xanuunayo oo xulbada necebsaan u sameyso jileec bay horta noqota bajaqa waaye. Xalay oo dhan biyay ku jirtay. Biyaha markastoo aad jikada gashid waa ka daadinay. Macaankeedana kaale iska arag macaanay noqotay. xulbada aan necebtahay macaanay noqotay. aneemiya iskuma arkaysid, calcium nafaqa ka buuxda. tan kale aaday ugu fiican tahay dadka dhabarka xanuunayo. Marka caafimaadkiina wax kasta ka muhiimsan. tan kale waxaa sameynaya shiido. weligaa iyadoo shiidan ha soo gadanin, waxbaa lagu daraa. waa shiidanay markaa shiidatid maxaa sameynay suugada ku darsanaysaa. waxaa ku darsanaysaa hal qaado cabitaanka shiidanaysid. hooyada ilmaha nuujinaysa aaday ugu fiican tahay. caanaha waxyaabaha caanaha siyaadiye ka mid tahay. haye waxaa kaloo sameyn kartaa asxaabta hal qaado kala soo qaadee waa soo dhaqaysaa. anaga waa soo nadiifinay. biyaha ku shubaysaa, dabka wax yar saare ama biyo karkarsana ku shuban kartaa sida shaaho kala u sameysane. dadka sokorta qaba aaday xulbada ugu fiican tahay inay cabaan oo waxay ka dejisaa sokorta. waxyaabaha aan kor u qaadin dejiyana ayay ka mid tahay runtii oo aaday caafimaadka ugu fiican tahay. sokor baa ku darsan kartaa asxaabta qaaliga. haddaa rabtid malab baa ku darsanaysaa. saan way u fiican tahay. haddaa rabtid biyo karkarsana korka uga shubanaya, shaah baa ka sameysane. waxaan rabaa dadka dhabarku xanuunayo, dhiig la-aantu hayso, gabadha umusha ah, gabadha xaamilada uma fiicna. waxyaabaha ilmaha aada waxyeelo u geeyay ka mid tahay. laakiin hooyada ilmaha nuujinaysa waxyaabaha caanaha u siyaadiyey ka mid tahay. xulbada aaday u fiican tahay. waxaa ka dhigataan markasta isticmaala, waa caafimaad. tan kale waa isku qurxina. inta shiidatid ayaa wejiga marsanaysaa. way ku jiraan beejka si kasta oo xulbad loo isticmaalo. laakiin maanta waxaan rabaa dadka dhabarku xanuunayo iyo dadka aneemiyada qaba inay ogaadaan waxyaabo easy ayaa caafimaadkooda kor usoo qaadaya oo natural. shaah baa ka sameysan kartaa. waqtiga qaboobaha xulbada waxay tahay waxyaabaha ku siinaya kulayl ku siinaya, haddana nafaqa. waa isku darsanay mirihii iyo cabitaanka isku darsanaysaa, waa isku cunaysaa. dhabar xanuun iskuma arkaysid. urkeeda ha fiirinin. waxa caafimaadka ugu jira u fiirso. runtii aaday u macaan tahay. waxaa kaloo idiisoo wadaa fiidiyooyo aada ugu fiican dadka dhabarka xanuunayo runtii oo ayaga dhan natural. asxaabta qaaliga ayaantan aniga waa mashquulay. waxaan rabaa inaad beejka kala kicisaan. beejka idinka ayaa iska leh. waxyaabaha aad jeceshihiin iisoo qortaan commentiga. intaan fiideo kale ku kulmayno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.